nabadgelyo. أنا حكينا صاحب ودوسي كم هذا دوسة مك قرار وحنا والله ما كنت أنا دوسة waxba ha yaabin waxa aad maqashay iyo sheekooyin kale oo ka yaabin doona waxa ay ka dhex socdaan barta kulmisa dhalinyarada ee TikTok. dhalinyarada Soomaaliyeed oo markii hore ahaa kuwa halkan ku soo bandhiga heesaha iyo hal abuur qaarkiis muhiim u ahaan lahaa bulshada ayaa hadda waxa taasi u bedeshay ciyaar aan waxba ka duwanayn qamaar taas oo laba qafood oo isbalansata ay halkan ku wada ciyaaraan. waxaa bilowday in wajiga foora la iska saaro si muuqaal ah waxaa ku xigsatay in dharka la iska bixiyo oo cawradii alle uu dhowray banaanka la keeno haddana waxa ay maraysaa in qof si toos ah ama live ugu jira bartan TikTok uu ku dhiirto in uu si toos ah dadka horto ugu dhuuso ina noo dhuustidaa rabaa ma saad ما دوسة هواي أنا قد دوسة الله كله عارف دوسة اللي دوم دوسة كم بس أول واحد كم شيء سأهمه dhuusada soo ma ahayn tii laga xishoon jiray oo xitaa marka ay ku qabato ee aad haddana cidliciirsi ku sugan tahay oo aad rabto inaad sii dayso ku dhiiran jirin oo aad dadka inta ka dhex baxdid meel cidla ahraasatid kadib nafisi jirtay haddana waxay maraysaa in sii daysid marka lagu dhaho siidaa ama lagu xujeysto teeno wadin waxa ugu daran haweenka oo in badan oo kamida ay ku hadlaan hadallo maanta iyo beriba dhaawici kara ujeedka ciyaartan loo dheelayo waa in lacag laga sameeyo live-ka iyadoo ay dadka daawadayaasha ahi ay ku soo dirayaan sintiyaal lacag ah waa haddii qofka ku daawanaya uu kootadiisa bangiga iyo mobilkiisuba isku xiran yihiin lacagna ay ugu jirto halkan TikTok marka aad joogtid si aad lacag u samaysid waa inaad qaylisaa miiska aad garaacdaa adiga oo aan waxba xiirin dadku ma wada sinna oo dhammaantood xumaan waxba kuma goobayaan laakiin inta wanaagsan waxa ka batay inta sida xun wax u qooshaysa walaal adiga oo lacag raadinaya ha ku dhicin haagaan dheer oo ay adkaan doonto berito inaad ka soo baxdid sababna ha u noqonin fidno aysan dadkeenu hadda ku baraarugsanayn ciyaara oo kaftama oo isxujeysta idinka oo dhowraya ilaalinaya sidoo kalena ka fikiraya berito saameynta xun oo ay dhalinyaradeen ku yeelan karto ficilada hadda ka dhex socda TikTok ee aad horseedka u tihiin ما أنا حكينا صاحب ودوسة كم هذا دوسة مك قرار وحنا والله ما كنت أنا دوسة سأهمه dhuusada soo ma ahayn tii laga xishoon jiray oo xitaa marka ay ku qabato ee aad haddana cidliciirsi ku sugan tahay oo aad rabto inaad sii dayso